tuulada Motherwell ee hoos tagta magaalada Port Elizabeth ayaa saacado ka hor waxaa bilowday qulqalatooyin boob ah oo fulinayaan qoysaska madow ah oo si bareer ah u beegsanaya dukaamo ganacsi ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed. mid ka mid ah ganacsatada la boobay oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay laguna magacaabo Cabdiqaadir Qasaaro ayaa inoo xaqiijiyay in caawa kaliya la boobay in ka badan 40 dukaan isla markaana ay iminka iyagoo boqolaal Soomaali ay caawa ku hooyanayaan saldhigga booliska ee magaalada BE. sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida gobolka Eastern Cape Cabdiraxmaan Raabi ayaa sheegay in kastoo aysan jirin khasaare nafreed ee falkan caawa ka soo gaaray Soomaalida ayaa haddana sheegay in saameynta ugu badneed ay ku yeelanayso guud ahaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika, isagoo sheegay in jiraan dad isaga soo cararay goobahooda ganacsi inta aan la boobin ka hor. taliyaha booliska ee gobolka Eastern Cape ayaa isna noo xaqiijiyay in boobka uu weli socdo balse ciidamo badan oo gurmad ah ay u direen tuulooyinka uu ka dhacayo boobka, isagoo farta ku fiiqay in arrintan ay ugu wacan tahay heshiisyo ganacsi oo hore u dhexmaray ganacsatada Soomaalida iyo kuwa wadaniga ah, balse uu sheegay inay ka baxeen marar badan ganacsatada Soomaalida. falka boobka uu daba socday kuwii toddobaad ka hor sidaan oo kale cagta loo mariyay 40 dukaan ay lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ka dambeeyaan ganacsato madow ah oo dalka u dhalatay, kuwaasi oo ka carooday kororka ganacsiga Soomaalida Koonfur Afrika. dhibaatooyinkani soo noqnoqday ayaa inta badan yimaada xilliyada doorashooyinka dalkani ka dhacayaan, iyadoo toddobaadkii hore la soo afjiray doorashada dowladda hoose oo ay ku tartamayeen 129 xisbi. Maxamed Deeq Muuse Nuur, Somali Channel TV, South Africa.